balse de anigu markaan fanaaniinta ka mid noqday waxaan imid fan dhisan oo qurux badan oo macaan oo bulshada Soomaaliyeed ay aad u jeceshahay iyo fanaaniin de magaranaysa aad jeclaysanayso oo midiba mid uu ka cajiibsan yahay abwaanin midiba mid uu ka cajiibsan yahay jilayaal midba mid uu ka cajiibsan yahay marka sanadihii hore oo dhan waxaan ka mid ahaa lafteedu anigoo fanaan ah ardayda fanaaniinta arday baan soo ahaa wax la barayay tababarayay dhinacna waxaa nalaga barayay muusig iyo qaabka loo labisto qaabka wax loo matalo ama loo jilo caawa horta labis baad soo hadal qaaday caawa iga muuqataaba inaad dugsi ugu soo baxday labiska inaba caadi ma Axmedow ya waad mahadsantahay walaal iyo anshaxa iyo asluubta looga baahan yahay fanaanku inuu bulshada kula dhaqmo iyo kuwa fanka ugu horeeyay ee macallimiintiisa waxay ku noqonayaan dawaalid oo kale iyo sidii aad kuwa adiga waxa aad hiigsanayso ama waxa aad leedahay yaa gaara oo qaabka ay u heesayaan iyo qaabka ay wax u matalayaan iyo qaabka ay dadka wax u fahamsiinayaan aad moodayso mataqaana inay caano ku cabsiinayaan